بسم الله الرحمن الرحيم مهمة mahad celinta guurka uu u leeyahay ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wa qaliilun min cibaadihi shakuur in yaro adoomadeeda kamid ah ayaa igu shukrisa shaydaanka ibliis markuu ogaaday ahmiyada ballaaran ee shukriga ay leedahay ayaa wuxuu ku dhaartay wala tajidu aktharuhum shaakiriin rabbiyo badankoodii wax kugu shukriyo ma heli doontid ma helaysid ayuu ku dhaartay nabigana allahumma salli wa sallim alayhi wuxuu yiri man laa yashkuri nnaasa laa yashkuri illaaha qofkii aan dadka u mahad celin ilaahay uma mahad celiyo taasoo uu ula jeeda in dadka loo mahad celiyo muhiimada ballaaran ay leedahay runtii shaydaanka guryo badan wuxuu ku dumiyaa mahad celin la'aanta ama isqadarin la'aanta wuxuu ku gelinayaa malaxumo ah maxaa ugu mahad celinaysaa ninkaaga waa hooshiisii ama wuxuu ku leeyahay xaaskaaga maxaa ugu mahad celinaysaa waa hoosheedii waa hooshii laga rabay inaa u mahad celiso ma aha ayuu ku leeyahay waxaa arkaysaa ninkiioo dadaalayo oo gurigiisa u hagarbaxayo oo baahida daboolayo oo aan loo mahad celinaynin muddo dheer sidoo kale waxaa arkaysaa haweenkii ama xaaskii oo gurigii hooshii iyo caruurtii la tacaalaysa oo aan loo mahad celinaynin taasna runtii qadarin la'aanta iyo mahad celin la'aanta waxay qofkii ku abuuraysaa firfircooni daro iyo stress taasna uma fiicna nolosha aadanaha marka walaalayaal waxaa muhiim ah inaad isu mahad celisaan mar walba oo lamaanahaagii ama xaaska ama ninkaagii ama xaaskaagii habeenka ah inaa mar alla markay howl fiican qabato u mahad celiso haddii aadan u mahad celin waa adigoo hadiyad inta oo box ku riday oo aan siinin qofkii oo hadiyada lahaa oo aad ka qarsatay marka taasna ma fiicno mahad celinta waa muhiim waxay ka mid tahay shidaalalka oo guriga wada isu mahad celiya hadduu ilaahay yiraahdo ilaahayna u mahadnaqa mar walba nimcadihii ilaahayna siiyey wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha macna ilaahay waqtiyada nimcada haddii aad xasuusato oo ku shukriso ilaahay wuxuu ku xasuusanayaa waqtiyada shidada ah oo dhibka badan ayuu ku xasuusanayaa mar walba daa'ima akhrinta سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرب معنى لو ذاس كلمة دائمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلهي كل شكرية هدو إلهي يراهدو ولكن بازي بسوري تي في عالمي يونيفرسال بارك الله فيكم